هذا أخيرا في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى قريو يدقمو أيها لاقي ريب بني إسرائيل مركي رزقي سحر الرادية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دقم ريب بني إسرائيل هيدو بد حيبت هذا دقن الله وحو كيري مالينتا السبت لا ماليها الدوانينو بد كتشوغا markaasay xeeladaysteen malaygii baa intay dabinno u dhigaan maalintii sabtida ahayd bay axadda la baxayaan qolo iyaga ka mid ah oo fiicnaa oo dad saalixiin ahaa baa yidhi warnimayo war u kaadiye war hayna halaagina war habaar qabooyin ilaahay ciqaabtiisa haynoogu sabab noqonina qolo saddexaadna waxay yidhaahdeen war kuwan maxaad ka waaninaysaan kuwan in la ciqaabayo waa iska caddahay maxaad isugu lugoynaysaan oo isugu dhibaysaan maad iska daysaan saddexda qolo markay u kala baxeen Allah subhanahu wa ta'ala falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in markii la kari waayay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxaad noqotaan doofaaro waxaan dhihi lahaa daanyero iyagii oo dhan ba loo bedelay qoladiina waa la badbaadiyay xumaanta diiday ee ka hortagtay reebtay qoladii tiri war maxamed iska daysaanay ka aamustayna Allah waa ka aamusay subhanahu wa ta'ala laana aljazaa min jinsi al'amal qariyada waxa loo halaagay oo daanyerada loogu bedelay ilaan daanyeraha hadii loo bedelo waa la halaagay sida ummadda hadii maskhi lagu sameeyo oo bini aadanimadeedii inta la bedelo xayawaan kale laga dhigo ma sii jirto markaaba halaag baa ku xigay waxa ku tusay xadiidkii nabigeena fi sahih al-bukhari nabigu sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid jiirka ayaa wuxuu yiri waxaan u malaynayaa in uu yahay ummad reer bani israa'iil oo la masakhay inuu jiirkani ka dambeeyaan u malaynayaa buu hayele wixii geel ku saabsan ma taato jir geela ilan geela reer bani israa'iil ayuu xaraan ka ah markaas haddana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay u waxyooday laakiin ilaahay hadduu ummad bedelo oo masqi ku sameeyo madaaye alla waa halaaga subhanahu wa ta'ala marka arintaasi waxay beeninaysaa usbuuradan aan waxba ka jirin ee gaaladu asalkeedu ka soo jeedo oranaysa bini aadamku daanyeradan iyo waxaanu ka soo jeedaa ama dadka qaar kood miday rumaysan yihiin oo daanyeradani inay reer bani israa'iil ahaayeen daanyeradani waa makhluuq iskii u madax bannaan laakiin reer bani israa'iil kii la bedelay la halaag ilaahay waa baabay subhanahu wa ta'ala waa la tirtiray madaayo ayagoo bini aadam ahaayo xayawaan laga dhigay haddana lama sidaayo ma sii noolaan karaan Allah waa tirtiraya subhanahu wa ta'ala muhiimadu marka waxa weeye ummadda waxa loo halaagay wax kala ma ahayn ilaahay markuu ka reebo yiri maalinta sabtida ah rizq badda ha u raadsanino ha kasbanina oo malayga hadabanina oo xeeladaysteen waxa ka dhashay ilaahay inuu halaagay subhanahu wa ta'ala